بروفيسور صالح سؤال كويدينا waxa weyn sidee u aragtaa dawladda Sheekh Shariif iyo al-shabaab khilaafooyinka ka dhaxeeya walaalkayow khilaafaadkan ka dhaxeeya labada kooxood ee walaalaheena labaduba ay daba taagan yihiin himiladii dawlad dhiska Soomaaliyeed waa mid aad iyo tiranyo leh waana mid aad iyo naxdin iyo murugabaan gelisay iyada oo ay laba daraadlo ugu wacan tahay inay labada kooxoodba sheeganayeen inay ka soo jeedaan samafalka iyo heshiisiinta iyo hanuuninta dadka ee diiniga waxaa loo muuqatay wadaad qofku ha ahaado amba waraale ha ahaadee mar haddii uu powerka iyo talisku laacayo in isaga iyo imaamku ay aad u kala tagaan xeeladiisuna ay ahaato xeelad garab ku daaqa balse haddii aan u soo noqdo su'aasha aad gaar ahaan iga weydiisay arrintan hadda taagan waxa aan ka odhan lahaa aad iyo aad baan anugu uga xumahay niman mudakara oo Soomaaliyeed oo waqti dheer oo dhibaato leh oo dhawaan ahaa soo maray welina ay dhiigii qoyan yahay dhibaatooyinkii dalkeena ka dhacay inay garan waayeen inay meel dhexaada oo isafgarada oo wada hadala ay isugu yimaadaan ee ay isula baxeen birtii iyo mindidii iyo xagjirnimadii marka arrintaas waa arrin aad u qadhaadh ilaahay tusmada ha tuso ilaahay ha tuso in wada hadalka iyo nabadda ay wanwaantu ku jirto ilaahay ha tuso inaan diintu u iman ifka inay dadka lagu gumaado oo lagu laayo oo wax loo yimi in dadku ku nagaadaan oo ay ku noolaadaan oo naruuro ku gaadhaan ilaahay ha tuso in dawladnimadu aanay ahayn in la isugu amarku taagleeyo la ismidiidsado ee ay tahay in dadka la gargaaro noloshoodana sare u soo qaado marka duco mooyaane wax kaloo lagu odhan karaa wadciga caynkaas ay arrintaasi gashay anuu garanaa